الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفريا طمناد كتاب كان إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان لابن القيم رحمه الله. waxaan ku jirnay qaybtii kaydkan weli ku jirnaa. qaybtii noo dambeysay waxaan kaga hadlaynay dhagarta shaytaanka oo ah inuu qofka fiirinaya labadii awoodood midda uu u badan yahay. waa inagii nidhi ma wuxuu u badan yahay inuu shayga himad iyo han u hayo firfircooni iyo nishaad uu rabo wax ku sameeyo marka xaddu ku gudbinaya, mise wuxuu u badan yahay inuu iska daalo uusan qofkaasi han lahayn oo iyadana uu maarata xagga kale usii reebo. xadiidkii waa inagii soo qaadayn markii u dambeysay. xadiidka laftigiisa qaybtii aan rabnay waxay ahayd يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها. يوري أن ربي وحو أدومها إلى الله وإن قل، يعني شيء وقفك الدائم أيا يا وناكسن وحي الدائم تافع هو يراض وإن قل هدوك هو يراض. ولذلك صلاة ربنا دوري طمر رقعدود هبين نتكن هبين نكتجي وحكفي عن صدق رقعدود هبين والبدك تبع كوناكسن الدائم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وحا كميدا قفك arrintii aan weli ku jirnay u dambeysay oo ahayd labadii arrimood. labada wabi ama waadiba mid ka mid uu ku gelinaya. waadi taqsiir inuu midka gaabinta qofka geliyo, ama wabiga waadi almujaawazati watacaddi midka xadgudubka iyo dhaafidda uu ku dhaafiyo meeshii fiicneyd inuu ku geliyo. dadka inta ka badbaadi waxaa la yidhaha walqaliilu minhum jiddan, in yar oo dadka ka mid abaa athaabitu cala asiraati almustaqiimi noqon. dadka wadada toosan ku sugnaana wayba yar yihiin. maxaa jira dadku labadaa dhinac baa wadartay u gudbaan. qolo dheeraysa oo shaytaanku uu maaragtay muqaalaa iyo xadgudub uu geliyo, iyo qolo gaabisa. marka dadka dhexdhexaadka wa khayru umuuri awsaduha, umuurna waxaa ugu fiican mar walba dhexdhexaadka ugu fiican biidni illaahi tabaaraka watacaala. ayib, marka qolo dadka ka mid ah qowm wuxuu ku xambaarayaa inay dadka ka fogaadaan oo keligood ictizaal ay sameeyaan, daacadii ilaahay ay keligood la noqdaan oo dadka ka cararaan. jumcadii, jamaacaadkii, jihaadkii, cilmiga barashadiisii, umuurtaasoo dhan dadkii way kala tegayaano gooniba intay meel isku xidhaan baa waxaa la leeyahay maarata hebel halkaasu ku khalweynayaayo fadhiyaayo. qof wuxuu iska dhigayaa maarata ummadii o dhan khayraadkii ummadda ku dhex jirkeediina wuu ka baxay. qof kalena wuxuu ku xambaarayaa inay dadka dhex galaan khaalatuuhum xataa fi dhulmi walmacaasi walaathaam. dadka waa lagu dhex jiraa in la yidhaahdo, oo dadku hadday wax walba galaan wuu garab taagan yahay. dhulmi hadday ku jiraan wuu garab taagan yahay. reerkiisu hadday reer kale ku duuli wuu garab taagan yahay. maxaan ku rahdaa baalkii la odhan jiray lacagihii la bixinayay dadka kale lagu duulay ee qoryaha la gadayay iyo fulaanka wuu garab taagan yahay. haddii la caytami waa la caytamaya, oo kuwan artay facebookyada iyo tiktok isu wada dhex fadhiyaan, qabiil qabiil isu caayayaan. marka macaasida haddii ay xaflad ka qayb galayaanoo tumasho iyo qashin iyo fulaan iyo heese iyo waa la jooga. marka dadkiibu gruubna wax walba inay la dhex galaan ayuu ka dhigay, gruubna inay dadka dhan ka fogaadaan buu ka dhigaya. qolo kaleba waxaa jirta iyadana qowmun oo iyagana uu ka mancinayo shaytaanku min alishtigaali bilcilmi alladii yanfacuhum. cilmigii iyaga anfici lahaa wuu ka fogeynayaa, waxayna u wareegayaan ilaa ay maarata keligood ay noqdaan. gaayadooduna ay noqoto يعني دون العمل به، يعني علمي إن يجو إسكبرتان كليجود العلم وحده بغاية كدكتان دون العمل به كما رقميان. مرك علمي وحو فائدة كلية هي عمل بو فائدة كلية. علمي كلية وحبت تري معايو حدي أوصن عمل فل أوصن لهين. مرك سيدا استرادت جروب من هالكاس أيودتك جارسي. جروب كلا وحو قصمين يا inay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala qofna qof uma shafeeco qaadaya bay yidhahdaan. ruuxna ruux u shafeeco qaadi maayo, oo maaragtay qofna shafeecadiisa qof kale loogu gargaari maayo. qolo kalena wuxuu gaadhsiiyey baa la yidhaahdaa inay yidhaahdaan qofku inta uu rabo isagu u shafaaco qaadayaa bikayr idni, ilaahay waan waxba u idmin. waad artay qolyaha hadda suufiyada iyo qaarkood iyo waxay iska aaminsan yihiin in sheekhoodaasi wax walba da qaar waad aragtay sheekhaasaba isagaaba maarata adigu ilaahay ma taqaanide sheekh hebel baa taqaanaa baa lagu leeyahay. yaa xanaan yaa manaan waad maqlayseen oo meelaha duulaaya. marka
إن اللي هو هذا أضو متقاور إلهي أضو متقان سادو عابدون ما قرنيسي سادو هذا الشيء متقان قف با كسق كان تقانايا كان ku xidhnow balfiira qofka meesha lagu celinayo marka halkaas lagu celiyo oo ruuxii ilaahay subxaanahu wa tacaalaaba dhexdiisii xaajis looga sameeyo qolo kale wuxuu ku xambaaray xaqaa'iq asmaa alrabbi tacaala subxaana iyo sifaadkiisii inay cadilaan ilaahay bay subxaanahu wa tacaala asmaadiisii iyo sifaadkii rabbi baa waxay leeyihin maya maya ilaahay male markaasaa waxay ku marka way u diidayaan oo waa maxay tusaale hadda ilaahay subxaana wa tacaala yad iyo gacan buu qur'aanka lagu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala lug waa la sheegay oo xadiistii bay ku cataa xataa yadaca subxaanahu caza wajal qadamahu yacni uu ka saaraba saas oo kale ilaahay subxaana yadaahu mabsuudataani aydi baa lagu sheegay gacmo badan iyo hal gacan indhaa la sheegay waxaasoo dhan way wada cadilayaan gacantii waxay leeyihin waa alquwa maya 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 ma aha waxani gacan meehe waa awood wey iyagaa fasiraya laakiin waxa cajabta badan waxaa la yidhi oo ilaahay subxaanahu wa tacaala miyuu qofku rabaa inuu yidhi anaa kaa aqaana waa sidii adigoo dhahaya rabbi ow maya 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 laa yaa rabbi luqa alcarabiya anaa kaa aqaana oo waxaasaad u jeeday aad leedahay subxaana allah marka taasoo kale bay ka dhigan tahay la yidhi waxaasina suuragal ma qolo kale waxay ku tashbiihiyeen allah bay dadkii ku tashbiihiyeen oo ku miithaaliyeenoo iyaguna isku mid bay ka dhigeen oo siduu kursigan loogu fadhiya ka loogu fadhiya marka baabul asmaa wa sifaat waxa ugu fiican oo ummad badan waxa ay ku halaagsameen waxa ugu wanaagsan waxa weeye allah subxaanahu wa tacaala wixii uu sheegto oo sifaa in loo daayo sideeda loo dhaafo oo maaragtay waa sifatan taliiqu bijalaalihi وعظمته ليلاد إلهي بي قاب عنموي ها إلهي سئ عننتوي أنه قرن مين وتليق بجلاله وعظمته لكن هل مرك هذه دباتك وهي سواء مع هذا ترى الشيء إلهي بي ودين إياه الله با قرن سبحانه وتعالى مرك إيدنا وقيب أي كل رقمان سيدا سين نقطة إلهي سبحانه وتعالى هين السوق وهين إلى عليه والله أعلم